سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داوديال قضبضاد ورركنا كمغلي دونتان وحاكم إذا xogagaati belafay xasuuq yabidugu cusla u geystay ciidamada dawladda Itoobiya iyadoo xogagaati belafay gacanta ku dhigan hubkii aadka u cusla ay wateen ciidamada dawladda tiknikadii abidugu cuslaan ay ku burburiyeen xuduudda deegaanka Axmaarada oo military aad u tira badan oo saf ballaaran ku soo qaaday xogaga Tigraygu ay halkaasi ku go'doomiyeen gabi ahaan ay waxay qudha ka jaraan iyo waxay gacanta ku dhigaan ay ka dhigeen hubkii aadka u tira badnaan ay u sii daabulayaan gudaha gobolka Tigrayga sidoo kale dawladda Eritrea ayaa la sheegay inay ku jabtay dagaalka ka soconaya waqooyiga Itoobiya ciidamadii dalka Eritrea ee muddada dheer ka dagaalamaya gudaha gobolka Tigrayga ay xogaha rasmiga ah sheegayaan gabi ahaan inay xogaga Tigraygu gacanta ku dhigeen Eritrea ay xanuunka iyo jabka soo gaaray ciidankeeda ay mar kale qayladhaan hawada u dirsatay iyadoo weeraro duqeymo aad u culus ay ka wadaan ciidamada cirka ee dalka Eritrea magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigrayga iyadoo halkaasi dad rayid ah oo aad u tiro badan ay waxyeello soo gaarsiiyeen diyaaradaha ama ciidamada cirka ee dalka Eritrea oo weeraro aad u xooggan soo qaaday saacadihii ugu dambeeyay sidoo kale qoomiyadda Axmaarada ayuu jab aad u weyn ka soo gaaray dagaalka ka soconaya waqooyiga Itoobiya iyadoo kumanaan kun oo dhalinyaro ah oo loo daabulay gobolka Tigrayga la sheegay inay waxba ka soo noqonin isbitaalada magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Axmaarada waa sida Baxardar iyo Gondar iyo deegaano aad u tiro badan ayay guud ahaan isbitaaladu buux dhaafiyeen dhaawacyada dhimashada ayadoo qoomiyadda Axmaaradu ay dagaalka si weyn uga qayb qaadanaysay ayuu haddana jab aad u culus soo gaadhay xogaga Tigrayga ayaa la sheegay inay isticmaaleen sunta khatarta badan wadata oo la sheegay inay Axmaarada ama dhalinyarada sida mutadawacnimada dagaalka u gashay ay gabi ahaanba halkaasi ku baaba'een sidoo kale dagaal xooggan ayaa wali ka soconaya gobolka Oromiya oo u dhaxeeya militariga Itoobiya iyo jamhadda Ola ee xoreynta shacabka Oromiya ayadoo jamhaddu ay sheegtay guulo waaweyn ka gaadhay dagaalka ka soconaya bartamaha gobolka Oromada dagaalyahanada Oromaduna ay ku sii fidayaan deegaano aad u ballaaran oo sida uga fogeyn caasimadda dalka maamulka dowladda Soomaalida ayaa kumanaan maleeshiyada u sii daabulaya xuduudda deegaanka Canfarta ayadoo ciidamada maleeshiyada loo yaqaan ee dowladda Soomaalida ay isku ballaadhiyeen deegaanada galbeedka dhaca dowladda Soomaalida si ay gabi ahaanba maleeshiyadka Canfarta ay uga saaraan galbeedka site qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna taariikhdu waxay ku beegan tahay 17 bisha 9aad 2022 haddaynu guda galo wararkeeni oo faahfaahsan xogaga TPLF ayaa dagaalka ka soconaya waqooyiga Itoobiya guulihii abid ugu balladna ka soo hoyay ayadoo dagaalkii dhacay saacadihii ugu dambeeyay jabkii abid ugu cusla loogu geystay militariga Itoobiya xogaga Tigrayguna ay gabi ahaanba gam ka dhigeen ciidamo lagu sheegay inay 10,000 oo askari gaarayaan oo ciidanka dawladda iyo maleeshiyadka laga soo kala ururiyay gudaha dalka Itoobiya xogaga Tigrayguna xasuuq abid ugu cusla ay u geysteen ciidamada huwanta dawladda Itoobiya ee dagaalka xooggan ee safka ballaaran ka wada 7 jaho gobolka Tigrayga oo saacadihii la soo dhaafay ugu yaraan 7 jaha weerar lagaga soo qaaday ayaa la sheegay xogaga Tigraygu inay guuro aad u ballaaran ay ka soo hoyeen hub iyo saanad military oo wali gacanta Tigrayga galna ay gacantooda soo gashay muuqaalo lagu soo bandhigay warbaahinta ku hadasha afka TPLF ayaa hubka ay ka furteen ciidanka dawladda taangiyada aadka u culus diyaaradaha lidka hubka diyaaradaha
diyaaradaha lidka gantaalada meelaha fofog wax ka gumada la sheegay inay xogaga Tigraygu ay gacanta ku dhigeen hubkaana loo daabulay dhanka iyo gudaha gobolka Tigrayga oo xarumaha TPLF ay ka soo duusho ciidanka dawladda Itoobiya ayaa saacadii la soo dhaafay jabkii ugu cusla uu ka soo gaaray baa la yiri dagaalka ka soconaya waqooyiga Itoobiya ayadoo dagaalka Itoobiya marba marka ka dambaysa uu waji yeelanayo una ku sii fidayo deegaano aad u ballaaran oo ka tirsan gobolka Tigrayga sidoo kale qoomiyadda Axmaarada ayuu jabkii abid ugu cusla ka soo gaaray baa la yiri dagaalka ka soconaya gobolka Tigrayga ayadoo qoomiyadda Axmaaradu ay maalmihii ugu dambeysay kumanaan kun oo dhalinyaro ay u sii daabulaysay jiidaha hore colaada si ay qayb libax la uga qaataan ama ay uga garab dagaalamaan ciidamada difaaca qaranka dalka Itoobiya hase yeeshee dhalinyarada loo daabulay gobolka Tigrayga oo aan lahayn taatikada dagaalka ayaa la sheegay dagaalkaasi inay si xun ugu halaagsameen iyadoo isbitaalada magaalooyinka Gondar Baxardaar iyo deegaanada Axmaarada guud ahaanba ay buux dhaafiyeen oo hinta iyo qayla dhaanta qoomiyadda Axmaaraduna ay cirka isku shareertay iyadoo xasuuqi abid ugu cusla uu soo gaaray dhalinyarada loo daabulay gobolka Tigrayga lana sheegay xogaga Tigraygu inay adeegsadeen sun si xun wax u gumaada oo gebi ahaanba ciidamada iyo dhalinyarada ka dhigtay wax gacmaha dhiibta iyo wax qodha laga jaro sidoo kale dawladda Eritrea ayaa la sheegay dagaalka ka soconaya waqooyiga Itoobiya in ay ku jabtay ciidamadooduna xasuuqi abid ugu cusla halkaasi ka soo gaaray ayadoo dawladda Eritrea hadal cadhag kulul ay beesha caalamka u dirtay iyo dalalka reer Yurub inta badan siyaasadda aadka u daneeya ama colaadda Itoobiya in la soo afjaro ka hadla dawladda Eritrea oo jab aad u culus ka soo gaadhay ayaa ciidamadeeda noocyadooda kala duwan rabtay inay mar kale dagaalka soo galiso ayadoo diyaaradaha ciidamada cirka ee dalka Eritrea ay duqeymo ka firinayaan magaalada Mekele ee caasimada gobolka Tigrayga diyaaradaha Eritrea ayaa saacadii la soo dhaafay garaacay xaafada magaalada Mekele oo dad rayid ku badan yihiin iyadoo halkaasi dadka rayidka uu ka soo gaaray khasaare aad u ba'an Eritreana wali ay wado dhanka cirka garaacayso magaalooyinka Mekele Shiraro Shire iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Tigrayga gobolka Oromiya waxa ka soconaya dagaalo u dhaxeeya ciidamada Itoobiya iyo ciidanka xoreynta shacabka Oromiya ayadoo jamhadda Ola ay sheegtay inay ciidamadoodu ay ku sii fidayaan deegaano hor leh oo ka tirsan bartamaha Oromada dagaal xooggan oo halkaas ka dhacay ay dagaalyahanada Oromadu sheegeen inay guulo waaweyn ka soo hooyeen ciidamada dawladana gabi ahaanba ay ka xoreeyeen deegaanada ballaaran qodobareedkeena ugu dambeeyay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa u sii daabulaya galbeedka City maleeshiyaad aad u tiro badan oo loogu talagalay inay la dagaalamaan xogaga canfarta ee ku habsaday galbeedka City halkaana ay ka socdaan duulaanaadu ballaaran tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.